wadani wuxuu sheegay inuu mudaharaadkii London ka dhacay saldhigga military lagu diidanaa ee lagu xiriirinayay Soomaaliya safaaradeeda halka ku taala in ka dambeysay inuu la qabo fikirkaasi ama mudaharaadkaasi uu taageersay halkan wuxuu kaga dhawaaqay inuu dhawaan uu qaban qaabanayo mudaharaadka wax ka dhici doona sidoo aragtaan ka xukuumadda arrintaas aragti ma leh arrintaasi wixii aanu sheegayno u bacdaystay inuu la qabo nimanka iyaga hawsha ay wadaan uu wakiil ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu cadaystay waa taas jawaabtu marka xukuumadda idinku sidoo aragtaan mudaharaadka ka dhacay muxuu ku duwan gashay mudaharaadeen dad Soomaaliland dhigayeen dad inay Soomaaliya ka dambeysay ma Soomaaliya ka dambeysay Soomaaliya ka dambeysay way cadahay waxa amarka bixiyay ama ku dhawaaqay waxa weeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo uu diidanaa muu ogolayn lobbying buu ka galay dawladdu u tagay يا هوشاس iyada in la joojo ninkii caynka ahaa ninka reer Soomaaliland ama xisbi hogaaminaya ama shacab weynahaba oran maayo muxuu ahaa siyaasad arinta taabta waa nin la qaban nimanka iyaga waa nin isku kooxiyiin waa nin isku hadaf yihiin waxaan aqoonsanahay dadkaasi waa inaga soo horjeeda way isnaqaanaa wana ishaynaa laakiin keena halkan waxaan aqoonsanahay inuu qaran dumis yahay ومحو هاي كسو هرجيدو ummadani go'aankii ay qaadatay 1991 wixii ummadan goostay inuu kasoo horjeedo aniga aan warkaya kaas wuxuu cid alla cid uu noqdo haduu noqdo muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani iyo haduu cid kale noqdaba way sababtaadi weydiiseen baa wadani gudoomiyaha la qabo haduu la qabo de waa kaas uu noqonaya xisbiga wadani haduu mudaharaadkiisa ku adkaystay inuu bartan ku qabto mudaharaadka uu ku baaqay ka xukuumadda maxay ka meeliyay mudaharaadaan ummadda ogolay la qaban maayo mudaharaadaan ruqsad haysan oo la ogolaan maayo mudaharaad lagu duminaya qarankan la ogolaan maayo